isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa la dhigay dhagaxaanta shubka ah waxaana dhagaxaantaasi la dhigay taalada hareeraheeda 14 Oktoobar dadka Muqdisho gaar ahaan kuwa isticmaala wadadaas ayaa walaac ka muujiyay Zakariya Maxamuud ayaa sheekadan ku eegaya halkan waa wadada isgooska Soobe oo inta badan dadka ay ku xasuustaan qaraxii 14 Oktoobar xalay xilli dambe maamulka gobolka Banaadir ayaa dhigay dhagaxyo cusub oo ay ku sheegeen in loogu talagalay yareynta zaxmadda badan ee ka timaada gawaarida isticmaasha wadadaasi saameynta ugu badan dhagaxyadan waxay ku yeelatay xaafadda Bulxuube oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir cabashada ugu weyn ee dhigista dhagaxyadan waxay ka imaaday isla subaxnimadii hore darawallada gaadiidka iyo dadweynaha isticmaala wadadaasi qaar ka mid ah darawallada iyo dadka shacabka oo la hadlay telefishinka Universal ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay in dhagaxyadaasi ay dib ula laabtaan si ay ugu helaan fursad wanaagsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha wadadaasi dib baan ku wareeg dheer aan galeyna tiifuuda soo gali jirnay hadda galtaankaas ma jiro wareeg dheer aan galeyna mana ka hadli karno madaxdu waxa baaq ugu diraa inay dhagaxintan laamiga ka bixiyaan aan ku shaqeysano magacay waa maxay Cabdullaahi Faarax waxaan ay gaadiidleyda Muqdisho shidadkiisa u jeedaa Masooba waa nagala xiray waayo meeshii baabuurta kasoo kala wareegi jirtay waa nagala xiray caqabad weyn baa naga haysata markaan soo kala wareegayna waxaan kasoo kala wareegnaa laamiyada Soobe iyo wasaaradda arrimaha dibadda labadaas meelood kaliya noo furan markaan ka dhinacaas aan waa meesha dhameed lagu kala wareegay Bulxuube dhan waa go'doon ku jirta markaan xageeda soo wareegsanayno markii aan ka nimaad markaan ka timaadid dhinaca Banaadir macnaha ka soo rabtay ka timaadid Bulxuube soo jiray sidoo kale lamid waa markii caqabadaas naga haysata waa in macnaha cabashadaas waxa u gudbinaynaa maamulka gobolka Banaadir waa maamulka waxaan shacabkoodii baan nahay barakaatu aan magacii ku bilaabay Axmed Maxamed Raxmaan oo ka hadlaya wadada jidka dheer oo la soo dhigay isgooska lambar 4 dhagaxinta la soo dhigay aad waxa wadanayna cabashada ay tahay aan wadna waxay tahay waxaan ka soo wareegaynaa wasaaradda arrimaha dibadda aan ka soo kala wareegaynaa midda kale aan ka soo kala wareegaynaa isgooska oo laamiraha ka soo kala wareegaynaa dhibaatada ay nagu hayso waxay tahay wareegaas soo galanay shacabkii macnaha oo dhibsanaa wareegaas soo wareegsanin oo dhibsanaa oo degdega aan dhibsanayaan marka cabashada soo jeedinayna waxay tahay in macnaha dhagaxaas la qaado oo ciidamada la soo kordhiyo oo ciidamada taraafikada inay shaqeeyaan oo la soo kordhiyo oo shaqadeeda ayakana si waajibaadkooda ay u gutaan oo ciidankaas meesha oo la keeno aan u baahanna Zakariya Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha ururka jabhadda ONLF ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga wafdigani uu horkacayo Admiral Maxamed Cumar Cismaan waxa halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda deegaanka Soomaalida qaybaha kala duwan ee bulshada shalay ay ahayd markii uu ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu sheegay inuu kulamo kala duwan la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale mas'uuliyiinta waxa uu bulshada ugu baaqay inay mar walba ka shaqeeyaan ammaanka iyo horumarkaba wixii warar ku soo kordho wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan insha Allah markana Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray dhawaantan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa uu baaq u diray dowladda Itoobiya Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa ka soo waramay Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida kaasi oo ahaa in Somaliland iyo waliba meelo kale oo magacaabay madaxweynuhu ay ku sugan yihiin dad doonaya inay qaraxyo ka fuliyaan Itoobiya dhexdooda sida ay ka warqabtaan maalin dhaweyto madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ee Itoobiya hadal buu jeediyay hadalkaas oo odhanaya dadkii dambiilayaasha ahaa ee arrimihii berigii dhawaato kilalka shanaad ka dhacay waxa ay joogaan Somaliland iyo maxaan ku dhahdaa meelo Soomaaliya ka mid ah oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahdaa
puntland iyo meelo uu magacaabay nimanka halkaa jooga oo iyaga dambiilayaasha uu ku sheegay in ay dambiilayaal ka yihiin waxay halkaa somaliland ka soo maleegayaan dhagaro iyo waxyaalo qarxin dowladda etoobiya dowlad deegaanka ku wajahan marka ugu horeysa horta aad iyo aad baan uga xunnahay in ay arrintaas ay ka soo yeedho madaxweynaha dowlad deegaanka dowladda somaliland aad iyo aad bay uga xun tahay waxaan sheegaynaa oo madaxweynaha dowlad deegaanka u sheegaynaa in dowladda somaliland muddo dheer ilaa iyo 1991 intii dowladda somaliland ay dib ula soo noqotay xorriyaddeedii oo muddada 30 sannadood ku dhowaadka ah xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan oo aad u qoto dheer oo darisnimo walaalnimo oo siyaasadeed ayay la lahayd dowladda Ethiopia xusid mudan berigii dhawatay shaqaaqadu ka dhacday kilalka waxa la leeyahay wixii lagala baxsaday dowladda Ethiopia ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed sida ay u dhantahay Somaliland waa dalka qod ee aan wax allaale iyo wax maxaan ku raahdaayay ku dhex qarsoomay aanay jirin gaadiid aad iyo aad u fara badan ayaa lagala soo baxsaday gaadiidkaas siday u dhantahay dowladda Somaliland gacantay ku qabatay waxa la leeyahay wixii Soomaaliya lala galay hadday hubta iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday madax tahay iyaga isweydiin doonaan inay wax kaga soo noqdaan iyo in kale laakiin waxaanu ka warhaynaa inaanay waxba kaga soo noqonin xataa waxay gaadhsiisan tahay gaadiidka Somaliland qabatay booyadihii shidaalka ahaa oo buuxa oo la qabtay iyaga oo sidoodii u buuxa baan dowladda Somaliland in Ethiopia ugu celinay halkan xerada poliska ayaanu ku soo bandhignay madaxweynaha dowlad deegaankana waxaan leenahay saaxiib nagama ka qabato inaad labada dal arrin noocaas aad ku tilmaanto waxaan jecelahay inuu arrinta dib u saxo sidoo kale maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay dib u dhaca doorashada ee wakiilada iyo waliba golayaasha deegaanka iyo waliba hadaladii ee labada xisbi ee u cid iyo waliba wadani haddaba maxaan ku dhahdaayay way taagantay arrintii doorashada in la qabto si arrintii doorashada loo qabto kow waxaan ku talinaynaa annagu marka ugu horeysa saddexda xisbi qaran intay isaga yimaadaan inay ka wada hadlaan negotiate gareeyaan wada hadlaan isqanciyaan aaraada iska dhageystaan tala ka dhiibtaan muddada ay la tahay in maxaan ku dhahdaayay la kordhiyo annagu go'aanka ma lihin muddada laakiin tala soo jeedin karnaa odhan karnaa madaxweyne commission qoraalkii uu ku soo gudbiyey ee muddo kordhinta doorashada haddaanu nahay saddexda xisbi qaran waxaanu ku talinaynaa in muddada intaa laga dhigo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal TV hargeysa dhibane nuur samawade oo aan dhowaantan ka diyaarinay warbixin uu kaga hadlaya daryeel la'aanta haysata ayaa maanta inoo sheegay in laga qaaday hubkii iyo sidoo kale aqoonsigii waxa uu sheegay in sidoo kale lagu wargeliyay inuu difaacdo nafsadiisa arrintan ayuu sheegay inay dhaawac badan ay ku tahay shakhsi ahaantiisa haddaba mar uu arrimahaasi ka hadlayna waxau yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ummaddeeda Soomaaliyeed dhammaan waa salaamayaa meel kastoo ay joogto waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo horey waxaan u duubay fariin aan u cabanahay in wax laga qabto fariinta ayada ahayd waxay saameysay shaqadii aan hayay oo qaranka u hayay oo ku dhaawacmay shaqadii saakay waxaa ligala wareegay gebi ahaanba qalabkan ku shaqaynayay iyo edhikaarkii waana liga soo rusqeeyey oo waxaa la yidhi bannaanka oga bax oo waxaa sabab looga dhigay in aan howlo ayna ayaga markaas aan anfacayn aan ka hadlay ayna rabin in laga hadlo taas horta inaad la socotaan baan rabaa waxaa kaloo rabay inaan idiin sheego inaan idiin mahadceliyo sida aad ii taageerteen
ood u muujiseen garab istaaga aad garab taagantihiin mar walbo. waxaan kaloo ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka maadaama de aqoonsigana laga qaatay aan ku shaqeynayay xaaladdeeda abni in ay laba dhinac ahaan aan u baqaayo dhinacaan hadda shaacinaynin iyo dhinacigta argagixisadii hore awal baan la dagaalamay dagaalka naga dhaxeeyay taas dawladda waxaan ka codsanayaa inay xil weyn iska saarto oo ayna jawaab ka soo bixiso. markana aynu ku noqono magaalada Hargeysa. hay-adda SOS Children ayaa maanta waxa ay maalgelisay 75 qoys oo kamid ah kuwa dadka danta yar. Idruus Cabdullaahi Beershiye ayaa warkan waxa uu ka soo diray Hargeysa. munaasabadani oo iskugu jirtay soo dhaweynta iyo guddoonsiinta deeq lacag ah oo dhan $60,900 oo loogu talagalay inay ganacsi ku abuurtaan 75 qoys oo kamid noqday bulshada danyarta ah ee hay'adda SOS ka taageerto dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta qoyskaba ayaa lagu qabtay mid kamid ah hoolalka ku yaala xarunta SOS Village ee ku taala magaalada Hargeysa. ugu horreynna waxa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo xoojinta qoyska madaxa mashruuca Simire Maxamuud Xuseen, Mahad Xuseen iyo Mustafa Caqli oo iyaguna ka tirsan hay'adda SOS. mashruucan xoojinta qoyska waxa la bilaabay 2008 waxaana lagu bilaabay magaalada Hargeysa 100 qoys oo ka kooban 400 ciyaal. mashruucaasi markii la arkay inuu midho dhalay baa la kordhiyay oo Hargeysadii waa laga balaariyay Berbera la tagay Sheekh baan imikana maraynaa iyo Gabiley labada waanu sii balaarin. muhiimadda ugu weyn mashruucan waxa weeye daryeelida caruurta aan lahayn daryeelkii waalidnimo maadaama aad tihiin warshadii soo saaraysa ubadka ama ka mas'uulka ahayd ubadka danyarta ee agoonta aan haysan daryeelkii loo baahnaa si aad u caawisaan. lacagtan mas'uuliyadeeda waxa iska lahaa doona ururka Tawakkal. iminka qoys kasta wuxuu awood u leeyahay inuu $800 qaato. hay'adda SOS sidaa idinkaga tagi mayso. mashruucaasina wuxuu yahay $60,000 oo loogu talagalay qoysaska 75 ah ee Sheekh Cumar degan in qoys kastaaba uu fursad u helo inuu ku bilowdo ganacsi. dhammaan waxyaabahan isleenahay kharashaad xaafadda ku keenaya hooyooyinkana inay hay'addu ka kabto sida caafimaadka iyo waxbarashada. dadkiina waxa loo soo xulay waxa weeyaan waa dadkii Sheekh Cumar ugu liitay 75 qoys. ujeedada lacagta loo siinaya ma aha in iyagu ay siday doonaan ganacsiga ka yeelaan. ujeedadu waxa weeyaan in aynu caruurteena iyo lafaheena aynu wax ugu qabanno. Xaliima Maxamuud Gaas oo ku hadlaysay dalada Tawakkal oo ay ku jiraan 75 qoys ee danyarta ah ee ka tirsan xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa ayaa hay'adda uga mahad celisay maalgelintan ganacsiga loogu abuurayo qoysaskan danyarta ah. 7 ilmood oo hooyo kaliya oo danyar ah oo waxba haysanin ayay mar kaliya u qadimeen buugii iyo qalinkii iyo dirayskii. SOS aad baan ugu mahad celinaynaa. maantana waxay halka noogu daafurayaan lacagtii maalgashiga ahayd. geesooda agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Deeqa Cabdi Yuusuf, Siciida Xasan agaasimaha maalgelinta ee wasaaraddaasi iyo Filsan Xuseen oo ka tirsan wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa waxay soo dhaweeyeen barnaamijkani xoojinta qoyska ee hay'adda SOS. wax maalgelina ma adduunka la maalgashto waxa ugu muhiimsan caruurta. marka aad baan ugu faraxsanahay qoyska inaad hore loo soo qaadayo oo sare loo soo qaadi. aad bay u mahadsan yihiin hay'adda SOS ka ay siinayso dawladeeda waayo waa dawladda waa support ay dawladda siinayaan caawimada ay idinka idin caawinayaan. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan aad iyo aad hay'adda SOS ugu amaanaya in ay qoysaska gacanta ay ku hayaan. hooyooyinkana waxaan aad ugu dardaaraya lacagta maanta halka la idinku siinayo ee maalgelinta ah in aad ay noqoto mid barbilow ah ganacsi wanaagsan. waa Idruus Beershiye, Telefishinka Universal, Hargeysa. munaasabad lagu xusayay maalinta loo asteeyay cudurka HIV/AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka. Maxamed Deeq Muuse Nuur Deeq Darajo ayaa soo waramay.
munaasabad lagu xusayey maalinta HIV/AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyadoo maalintaasi loo asteeyay in la xuso 1 bisha December ee sanad walba. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota, waxgarad iyo culimo udiin. munaasabadani ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota iyo hay'adaha ay bahwadaagga la tahay. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo ah isku xiraha wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ay wasaaradda bahwadaagga la tahay oo telefishinka Universal la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan Soomaali badan oo cudurkan la nool. waxaan idin la hadlayaa Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud waxaan maanta halkan isugu keenay bulshadii waxaa laga hadlayaa cudurka HIV-ga maanta waa December 1st waxaanu sameynayna wacyigelin World AIDS Day 2018 maanta theme-ku wuxuu ahaa dadku inay isla shaqeeyaan community leaders isla shaqeeyaan in partnership maxaanu ku gaari karnaa marka runtii dad badan baa isu yimid waxaa noo yimid team ka socda Minnesota Department of Health waxaa noo yimid elderskii waxaa noo yimid imaamyadii marka si fiican baa loo falanqeeyay waxyaalaha maanta laga hadlay waxaa ka mid ah in stateka Minnesota ay ku nool yihiin 162 qof oo Soomaali ah oo la nool cudurka HIV-ga sanadkii u dambeeyay 6 qof inuu ku dhacay sanadkii ku xigay 5 qof inuu ku dhacay marka cudurkii bulshada Soomaalida uu korayaa dadkiina ma oga. mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa sharaxaad ka bixiyay tirada dadka la nool cudurka HIV/AIDS kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika iyadoo dadkan la tirikoobay 5 sano ee ugu dambeysay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa From 2013 to 2017, that 5 years, we have a number of Liberian who are about 99. laga soo bilaabo 2013 ilaa 2017 waxaan haynaa dadka ugu badan inay yihiin dadka ka yimaada wadanka Liberia waana 99. The same years, Ethiopians 47. 2013 ilaa 2017 dadka Ethioopiyaanka cudurkaas waa haleelay waa 47. Somalia 27. dadka Soomaalida ee 2013 ilaa 2017 waa haleelay waa 27. Kenya 19. Kenyaatiga waa haleelay 2013 ilaa 2017 waa 19. Nigeria 15. dadka Nigeriaanka waa 15. And then South Africa 5. dadka South Africaanka waa 5. And Sudan 5. The other numbers are very small.